kusoo dhawaada Codka Ubax. Codka Ubax, a platform dedicated to discussing ideas that affect our society the most. wacyigelinta, Arrimaha suugaanta, Culture, and the voice of storytellers. waa mar kale iyo barnaamijkeenii waa la iga guursaday qaybtiisii 10aad. qaybtan waxaynu ku soo qaadanaynaa sheeko uu inoo soo diray mid ka mid ah dhageystayaasha Codka Ubax ee ku nool magaalada Hargeysa. dhageysi wacan. dadku inta badan waa laba nooc. dad aaminsan inuu jiro jacaylku iyo kuwa aan aaminsanayn. inkasta oo aan ka mid ahaa dadka la yaabi jiray marka ay arkaan qof leh jacayl baa haya, haddana markii dambe waxaan ka mid noqday dadka sida dhabta ah u aaminsan inuu wax jira yahay jacaylku. xanuun aan maray awgii waxa aan noqday qof u damqada cid kasta oo aan arko. waxyaabaha aan maqli jiray waxa ka mid ahaa in jacaylku dadka cuntada ka xidho. anigu waan soo arkay. intii uu hami goor igalay ayaan is-idhi reer waad yeelan kartaa. hal qof ayaan jeclaaday. aan dib kuu celiyo 10 sano ka hor. arday ayaan ahaa ku jira fasalka 7aad. waan yaraa runtii. wax yar ayay iga weynayd. isku xaafad ayaanu ahayn. jaar isku dhow ayaanu ahayn. haddana isku fasal ayaanu ahayn. dugsigii Guryasamo ee xaafadda Qurac Dheer ee magaalada Hargeysa. inanta aqoon dheer ayaanu isku lahayn, laakiin mar kaliya ayay madaxa la kacday. qurux aanan ku aqoon ayay mar kaliya yeelatay. inantii aanu isku jiilka ahayn, isku fasalka ahayn, deriska ahayn ayaa mar kaliya weynaatay. asxaab dumar ah oo ay aroosyada u raacdo ayay yeelatay. inantii yarayd ayuunbaa dirac iyo gowgarad xidhatay. durba way weynaatay. quruxda noocii aan anigu jeclaa ayay yeelatay. anigu aan yaraado oo dhalinyar aan ahaado, marna iskuul aan tago, marna kubad aan ciyaaro, laakiin waxaan ahaa nin wax damci kara oo wax guursan kara. inantii mar kaliya ayay iga weynaatay. qof asxaab kale leh ayay noqotay. asxaab baabuur leh. berigaas waxaa aad u badnaa baabuurta la yidhaa indhacadaha. habeenba mid noocaas ah ayaa guriga keena oo ay ka soo degtaa. annagu deris ayaanu nahay oo waan ka warhayaa. waan sugayaa habeen kasta inta ay soo hoyanayso. laakiin marka aan arko iyada oo baabuur ka soo degaysaba, laabta ayay xanuuntaa. aad ayaan uga hinaasi jiray. waxaan is odhan jiray yaa gaadhi ku siiya aad ku qaadide. dhibku waxa uu ka taagan yahay inanta aniga uunbaa jecel. iyaduse waxay ii aragtaa walaalkeed iyo saaxiibkeed ugu dhow oo ay ku sir qarsato. berigaas haddii aniga la ii barbar dhigi lahaa hooyaday, iyada ayaan ka raaci lahaa. aad ayaannu isugu dhoweyn oo maalin iyo habeenba waanu wada joognaa. wax kasta way ii sheegtaa. waxaanu ahay walaal ay wax walba la wadaagto. ma oga inay aniga wax kale ii dheer yihiin. waxa dhici jirtay in maalmaha qaar igu tidhaahdo aroos ayaan tegayaa, laakiin aanay haysan kharash ay dirac ku iibsato. iyadu way ii warramaysaa waxba igama rabto, laakiin aniga nafta igu jirtaa waa mid xal u raadinaysa iyada. aniga oo aan il dhaqaale lahayn ayaan carari jiray. xaafadda ayaan odhan jiray kaba kubadeed ayaan u baahanahay iyo marmarsiyo kale. $60 ayaan isugu soo ururin jiray. markaasaan u keeni jiray si aan uga farxiyo uun, si ay iigu aragto inaan ahay nin wax bixin kara, walow aanan baabuur lahayn. marka aan dareemo inay wax u baahataba, ballanqaadyo ayaan u samayn jiray. aniga intaa dabaraya ha u bixin ayaan ku odhan jiray, aniga waan meelna wax ku ogeyn. intaas waxa aan isleeyahay bal inay kuu aragto nin wax bixin kara, sida kuwa baabuurta wata ee iga waaweyn ee ay raacdo oo kale. habeenkii arooska waxaa laga iman jiray qiyaastii 2 habeennimo. habeenkaa ma seexan jirin ilaa aan hubsado inay timid. waan sugi jiray. waxa kaliya ee aan doonayay waxay ahayd inaan arko muuqeeda bes. mararka ay iigu darnayd waxay ahayd inay igu tidhaahdo ii kaalay aan xaafadda kaaga soo baxay. guriga lama fasaxayo haddii ay keligeed ka soo baxdo iyada oo labisan. laakiin haddii aan u tago, aniga ayay igu soo bixi kartaa, maadaama aniga la ii yaqaano oo aanu reerka si wacan isu garanayno. waan u tagaa, guriga ayaanu ka soo wada baxnaa. baabuur nin leeyahay ayaan saaraa. hadhow caawa marka ay soo noqonayso ayay ila soo hadashaa haddana. halkii ayaan ugu tagaa. baabuurkii ninku watay ayay ka soo degtaa. waan la soo lugeeyaa. guriga ayaan sidaa ku geeyaa. intaa ay iga maqan tahay ciil ayaan iscunaa. waad garan kartaa nin gabadhii uu jeclaa nin kale u kaxaynaya. intaa ay maqan tahay ayaan go'aan gaadhaa. waxaan israaniyow ama way ku diidi ama way ku yeeliya, u sheego dareenkaaga. marka ay soo noqoto ee aan wejigeeda arko ayaan wixii oo dhan iloobaa. annaga oo lugaynayna ayaanu soo hormarnaa dhalinyartii xaafadda. in aanu wada soconno oo jacayl naga dhexeeyo ayay u haystaan. anigu intaas ayaan ku nafisayaa. weliba iyada ayaa xoog ii daydayda. marka waxay moodayaan in aanu wada sheekaysanno.
anigu intaas ayaan ku farxayaa. Ninkaygii caraysnaa ayay niyadda u degtaa. Midda kale, waxa aan ogaaday in jacaylka noocan ahi uu kalsoonida qofka ka qaado. Ma dhiiranaysid, waxna isuma arkaysid. Tusaale ahaan, markaan xisaabtamo, inantana aan sidaa u sheego dareenkaaga, waxaan isweydiiyaa maxaad u haysaa. Haddii aad ka soo reebto ragga waaweyn ee baabuurta leh ee lacagta haysta, adigu maxaad u haysaa ee aad siinaysaa? Jawaabtu waxay noqotaa waxba. Deedna waxaan is odhan jiray, imika ayaad arkaysaa oo la joogtaaye, intaas ha iska kala tuurin. Waayo ma rabo inaan ku idhaahdo hadal iga fogeeya. Intaas aan arkayo ayaa ii muhiim ah. Cabsi aan ka rabo inay iga go'do darteed ayaan isu odhan jiray, iska aamus. Habeenada qaar inta aanu soo wada lugayno ayaa albaabka gurigeeda laga xidhan jiray. Deedna inta aan diirkooda ka dhaco ayaan hoosta ka soo firi jiray. Sidaasna ay ku hoyan jirtay. Habeen waxa ay jartay quraarada diirka xagga sare lagu sameeyo. Nabarkaasi weli lugta ayuu igaga yaalaa. Haddana habeenkaa maan tusin dhiigga i socda iyo nabarka i gaadhay. Waayo waxaan ka cabsanayay in aanu berri hore u soo hoyanno inta albaabka uu furan yahay, iyadoo ii diidaysay inaan diirka ka dhaco. Taasi waxa ay soo gaabin lahayd wakhtiga aanu wada qaadanayno. Sidaa darteed ayaan u qariyey. Waxyaabaha uu jacaylkeedu i baray waxaa ka mid ah in qofka aad dhab u jeceshahay aanad far saari karin, una dhowaan karin. Waxa jirtay maalin ay gacanta i qabsatay. Muddo kooban ayay gacantayda midig haysay. Waxa Ilaahay igu ogyahay inaanan cidna ku salaamin, waxna ku cunin gacantii. Muddadaas ay gacantii haysay waxaan islahaa, berri ayay laabta ku gelin, saa dambana nolol ayaydin wadaagi. Tin iyo cidhib inta aan dhidido, jiridhacana iga kacdo, ayaanan wax kale ka fikiri jirin intaasay gacantay haysato. Muddo kooban kadib xanuun ayaa igu bilaabmay. Xanuun ka yimid inaanan waxba u sheegan karin iyada. Maalin iyo habeenna aan arkayo inay rag iga waaweyn raacayso. Cid kale oo aan u sheegtana aan waayey. Qofku waxa uu nafisaa marka uu helo cid uu la wadaaga dhibtiisa. Anigu xitaa asxaabtii aan la wadaagi lahaa waxay u haystaan inay inantu i jeceshahay. Deedna aniga ayay waani igu bilaabaan. Inantu way ku jeceshahay ee ilaali. Inanta qalbigeeda ha ku ciyaarin. Ana hoos ayaan u idhaahdaa, Ilaahay baa xaal og iyo dhibka aan ku jiro. Culayska kale ee jira waxa uu yahay, inantu maadaama ay walaalkeeda iga dhigatay, wax kasta way ii sheegtaa. Xitaa ragga noocyada ay soo aragto way iga sheekaysaa. Mararka qaar waxay ii sheegtaa mid ay isbartaan oo saqajaannimo ula yimid, iyo sidii ay iskaga celisay. Intaas oo dhan waan dhegaysanayaa, waxna ma odhan karo. Mararka qaar anigoo la jooga ayaa la soo wacaa. Inta ay ka qabato ayay qaali odhan jirtay. Alla maxaan ereygaa nacay. Qaali. Aad ayay u isticmaali jirtay. Inta ay telefoonka ku hadlayso ee ay qaali ku celcelinayso, aniga dab ayaa iga dhex baxaya. Waxa la yaab leh, haddii ay aniga hooyaday i soo wacdo, anigoo iyada la jooga, awood aan kaga qabto ma lihi. Qof furfuran oo aniga iga kaftan badan ayay ahayd. Inta aanu wada joogno, 90% iyada ayaa hadli jirtay. Bal mucjisada Ilaahay, hadalba igama soo baxayo marka aan la joogo. Marka aan 2 kelmadood idhaahdo, hadalku wuu iga go'i jiray. Waxaan jeclaa keliya inaan iyada daawado oo ay sheekayso. Dhanka kale, waxaan u ahaa adeega jajaban. Habeenada qaar ayay ila soo hadli jirtay aniga oo sii seexanaya. Markaasay odhan jirtay, ma waddadaad joogtaa caana maraaci ayaan kuu diran lahaaye. Intaan kor u boodo ayaan been sheegi jiray oo aan odhan jiray haah. Dukaanka agtiisa ayaan taaganahay ee imika ayaan kuu keenayaa. Maadaama aanan shilin lacaga haysan, waxaan aqaanay halka la dhigo biilka maalinlaha ah ee xaafadda. 2,000 oo shilin inta aan ka siibo ayaa musqusha oo xagga dambe ku taalla tegi jiray si aan dayrka uga dhaco. Waayo haddii aan albaabka ka baxo, xaafadda ayay weydiinaysa wakhtigan xagga aan u baxayo. Orod ayaan waddadii oo indoor ah noo jirta ku tagaa. Waayo ma rabo inay i raagsato, maadaama aan u sheegay inaan marka horeba waddada joogay. Caana maraaci Yamani ah ayaa berigaa socday. Inta aan soo iibiyo, ayaan daaqadda gurigooda oo garaa'id ah uga dhiibi jiray. Dib inta aan gurigayagii ugu soo dhaco, ayaan si farxad leh u seexan jiray. Habeenkii ayay igu darnayd waxa uu ahaa. Sidaas oo kale ayay bannaanka wax iga daratay. Albaabka ayay iga fartay si aan ugu dhiibo. Garbasaar may xidhnayn markaa guriga ayay qaarka dambe kula jirtay. Anna waan u fidiyey alaabtii. Intii ay iga qaadaysay ayaan damcay inaan la sii yar hadlo, maadaama aan sheekadeeda xiisaynayo. Aniga oo hadalkeeda xiisaynaya ayaa toosh weyn xagga dambe laygaga qabtay. Beryahaas waxaa bilaabmay in xaafaduhu samaystaan ilaalo wareegta oo bishiina lacag la siiyo. Mid ilaaladaas ka mid ah ayaa halkaas dambe ka soo qayliyey, isaga oo 2 jeerna tooshka igu ifinaya. Uma jawaabi karo oo reerku wuu hurdaa haddii aan hadalka gaarsiin lahaa, maadaama uu meel iga yar durugsan soo fadhiyo.
markii aan hadalkiisa iyo ilayska xoogga ah u adkaysan kari waayey ayaan inantii ku idhi balisug anigoo cadho jiq ah iyadana iska dhisaya oo nin iska dhigaya ayaan ninkii oo fadhiya dul imid ninkii ayaan hanjabaad iyo hadal kulul isugu daray ninku marka uu fadhiyo wuxuu ila ekaa nin mijo yaryar oo aan iska celin karo markii uu istaagay ayaan arkay inuu 2 jeer iga weyn yahay isla markiiba waxa xigtay jug aan ka dareemay lafta daanka ka sarreysa waxa iigu xigtay anigoo dhulka aalla dubbo weyn in laygu dhuftay ayaad moodaysay ninku igama hadhina inta uu labadeeda gacmood jilbihiisa ku aadiyey ayuu wejigayga cidlo ka helay anigu markaas waxa aan ka warwarayaa oo keli ah inantii aan albaabka kaga imid nasiib wanaag meeshan uu ninku igu saaran yahay waa meel madow marka iyadu ma garan karto cidda la tumayo waxa aan go'aan ku gaadhay in aanan juuq odhan si ay u moodo ka wax dilaya ee wax saaranay inuu aniga yahay ninkii oo marba dakhri gaarsiinaya ayaanu cod iga soo bixin markii uu iskii iiga daalay ayaan soo kacay guriga ayaan soo hormaray show markiiba way xarootay oo albaabka ayay soo xidhatay haddaan moodayo inay gudaha gashay ninka miyaan isku waali lahaa 2 cisho ayaanan guriga ka soo bixin maalintii ay aragtay ayay wejigayga sidaa u eegtay markaasay i tidhi war maxaa ku helay ma gaadhi baa kula dhacay waxaan u sheegay inaan kubadda ku dhaawacmay maalin kale ayaa jirtay nin ayaanu kubad isku dilnay waa xamaasad iyo caadadeed reer gabiley ayuu ahaa muddo ayaa ka soo wareegtay waanan iska iloobay muddo kadib mar ay ahayd 18 May ayaan gabiley tegey baabuur aanan lahayn ayaan watay waxay la socotaa inantii iyo inan kale oo ay saaxiib yihiin jidka dabaaldegga ayay mari jireen ciyaartoydu markii xafladdii dhammaatay annagoo baabuurkii saaran ayaan dareemay jug weyn oo baabuurka soo gaadhay bannaanka markii aan u degay ayaan arkay ninka baabuurka laadka ku dhuftay ninku show waa ninkii aanu kubadda isku laynay Hargeysa oo aan magaaladiisii joogo anigu ma garanayn laakiin isagu wuu garanayay markii aan weydiiyey sababta uu baabuurka iga laaday ayuu Fadhi igu jawaabay wuu iga xoog weynaa manaan filayn dagaal degdeg ah moobil yar oo gacanta ku haystay ayuu dhowr jeer igu dhuftay baabuurkana wuu igu cadaadiyey meel aan u baxo ayaan garan waayey jugo badanna wuu i gaarsiiyey nasiib wanaag ilaahay baa iigu hagaajiyey gacmaha deedna dhulka ayaan ku tuuray 2 hablood ayaa soo degay anigoo ninkii ka sarreeya dadkii magaalada ayaana kala qabtay ilaahay wuu igu asturay oo nin iska celiyey ninka xoog weyn ayaan noqday ceebna igama raacin laakiin runtu waxay tahay inay nasiib ahayd oo aanan iska celin karin haddii uu mar labaad igu soo noqdo iyaguse ma oga ninkii oo cadhaysan oo layga hayo ayay halkan ka leeyihiin waar orod iska tag yaanu mar labaad dhulka ku dhigina ninkii inta uu sii xanaaqay ayaa lahayn kari waayey anigu waan gariirayaa oo waxaan isleeyahay ilaahayow yaan lagugu soo dayn waayo hortooda ayuu igu ceebayn lahaa waxay iigu darnayd markii 2 hablood halkan ka yidhaahdeen waar ku soo daaya muxuu isla waalayaa ku soo daaya mar labaad dhulka ha dhigee ilayn af aanad lahayn ma qabatid ducadii waa laga aqbalay oo ninkii layguma soo dayn hees kasta oo fanaan qaado waxaad moodi jirtay inay aniga iga hadlayso waxaan is oran jiray ma cid adiga oo kale ah oo sidaada loo helay ayaa adduunka joogta marka aan arko wax kasta oo qof aadama ah farxad gelin kara xaafadayda man xasuusan jirin iyada ayaan u geyn jiray iyadu marnaba imay xumayn saaxiibkeed iyo walaalkeed unbay ii arki jirtay maadaama oo aanan haysan cidan arrintayda la wadaago Facebook waxa uu ii ahaa saaxiibkayga koowaad calaacal oo dhan halka ayaan ku qori jiray hees kasta oo silic ahna halkaas ayaan soo dhigi jiray arrintaydu markii ay 4 sano maraysay habeen aan ka imid fasalkii uu dhigi jiray Cabdilaahi Muuse ayay ii yeedhay dadka xaafadda oo dhan ehel iyo asxaab islaan iyo oday dhammaan waa la isku kaayo og yahay waxaana loo haystaa inay sheeko naga dhaxayso maadaama aanu mar walba wada joogno anigoo 4 ayaan ku noolahay waayo xaalku sida la moodayo ma aha habeenkaas kaabada gurigooda ayaanu fadhiisanay anigu dhagax dhinaca ah ayaan ku fadhiyey iyaduna dhanka sibirka ayay soo fadhiday sidii deganayd ee u hadli jirtay ayay ku bilowday arrin aanan weli reerkayga u sheegin ayaan doonayaa inaan kula wadaago ayay tidhi maxaa jira ayaan ku odhi waxay tidhi nin ayaanu Facebook iska barannay xaaladda reerkayagana waadiga og ninku dibadda ayuu ku maqan yahay waxaan isleeyahay noloshiina ayuu wax ka bedeli doonaa adna qofka iigu dhow ayaa tahay inaan kuu sheego ayaan doonayay inta aanan xaafadda la wadaagin dee sidaa ula soco caawa ayaan doonayaa inaan hooyo u sheego arrintuna waaba iska degdeg oo wax laga yaabaa inay 7 dhammaato intaas ayay mar keliya israacisay waxay xanuuntay halkaa rubadda loo yaqaan halkaas ayay wax hoos ii go'een laakiin afkayga waxa ka soo baxday ilaahay ha sukiin barakeeyo
waxaan isiri inta aanay ilmadu ka soo daadan iska kac. Waan kacay. Markaasaan kacay wixii ka dambeeyay ma xasuusto. Dhulka ayaan ku dhacay. Waana suuxay. Waxaan soo kacay aniga oo islaamihii xaafaddu ii wada dul taagan yihiin. Waxa aan ka xasuustaa hooyadeed iyo hooyaday iyo islaamo kale oo jaarka ah. Markii aan indhaha kala qaaday waxaan maqlayay hooyaday oo leh waxa soo dhan waa dhiig yaraanta uu ka qaaday kubadda xun ee uu duhurkii ciyaarayo. Islaamo hooyo la talinaya ayaa ku leh duhur dambe yaanu bixin. Waa kanoo xididkuun baa surane. Anigu markaa aan miirsaday markiiba kor ayaan u booday. Waayo waxaan maqli jiray qofku marka uu suuxo wuu isku kaajaa. Marka aniga islaamahan iyo hadalkoodu iguma weynee ileen intii aan jeclaa ayaa i dul taagane. Markiiba inta aan booday ayaan is idhi bal is eeg inaad isku kaadiday iyo in kale. Nasiib wanaag Ilaahay wuu i asturay oo iskuma kaajin. maalintii meherkii ii kaalay ayay igu tiray. Waayahay ayaan ku oray, laakiin waan tegi kari waayay. Adduunka wax walba waan nacay, dadka oo dhan waan nacay iyada mooyaane. Marmar ayaan isugu sheekayay inaan heli doono. Haddana xaqiiqada ayaan garwaaqsadaa. Waxaana nafta u sheegaa inay imika nin kale u dhaxday, rajo kalena aanay jirin. Waxbarashadii waan ka hadhay. Kubaddii aan jeclaa waan ka hadhay. Asxaabtiina waan ka go'ay. Qofku show inta uu niyad ahaan degan yahay ayuu is xasuustaa. Waan is iloobay. Labis iyo nadaafan midna ma danaynayn. Qolka aan seexdo xitaa kama dhex kici jirin. Inaan iska hagaajiyo daaye. Meherkeedii ayaa baabuur loo iibiyey. Maalintii ay soo iibsanaysay baabuurka waan sii raacay oo waan ka soo eegay. Birta waan ku wacanahay. Waxaanan helay fursad aan kula kulmo aniga oo baabuurkeeda ka shaqaynaya. Maraan u soo maydho iyo maraan u soo hagaajiyo labadaba. Muddooyinkaas aanu wada joogno. Haddana waan waaninayaa. Waxaan ku leeyahay ninkaagu maadaama uu maqan yahay markasta oo aad baxayso u sheeg halka aad tegayso iyo goorta aad soo noqonayso. Wax aanu ogeyn ha samaynin. Haddana markaan ka imaado ayaan ciil ooyaa. Imika xaaladdu sidii hore way ka adag tahay. Cidna uma sheegi karo. Waa gabadh marwe ah. Cid aan la wadaagi karaa ma jirto. Wehelka keli ah ee aan leeyahay waa heesaha calaacalka ah ee aan marna dhageysanayo marna Facebooka soo dhigayo. Way i weydiisay dhowr jeer waxa iga sida ah. Mar walba waxba ma jiraan ayaan ku idhaa. Sidaas ayaanu ahayn ilaa uu ninkeedii imanayay. Waa markii ay igu darnayd. Intii aan arkayay aan baabuurka ugu gabanayayna tan ayay ahayd. Imika ninkeedii ayay lega kaga jirtaa. Is aragayagiina wuu go'ay. Markaas waxa ii bilaabmay waqti mugdi ah. Cuntadii yarayd ee aan maalintii mar cunayay ayaan joojiyey. Si kale umaan joojin, laakiin gaajaba waan dareemi waayey. Si uun baan u dheregsanahay aniga oo aan waxba cunin. Dhanka kale, xusuusihii hore ayay maskaxdaydu camal ka dhigatay. Habeenkii fiidka ayaa iigu darnayd. Waayo waa xilligii aanu inta badan is arki jirnay. Markaas ayay naftu i tidhaahdaa, kullayba xilligaa ninkeedii ayay la joogtaa. Waxa aan galay muddo 2 bilood ah oo mugdi ah. Waxa aan noqday qori indho iyo dhaga leh. Reerkii waxay haye wuu garan waayey. Dhakhtar kasta oo la igeeyo waxba la igama helo. Digtoor kasta wuxuun buu yidhaa waxba ma hayaane cuntada cundhaha. Walaalkay oo iga weynaa ayaa lay daba dhigay. Isaga ayaana loo xil saaray cuntadayda. Marka uu iga yarbaxo ayaan bac sariirta iyo hoosta la ku ridi jiray cuntada. Ugu dambayn jirkaygii ayaa joojiyey shaqadii. Tamarna waa la iga waayey. Waxaa la ila cararay dhakhtarka internationalka. Muddo 18 maalmood ah ayaan dhakhtarka ku jiray. Faleebana si joogto ah iigu socotay. Muddadaas way ii iman jirtay. Waxaan xasuustaa maalin ay ii keentay cananiskan daasadaha ku jira iyo tufaax. Ninkaygii aan wax cuni jirin horteeda ayaan labadiiba ku dhameeyey. Markii dhakhtarkii la iga soo saaray ayay iyaduna tagtay Addis. Ninkeeda ayaa kaxaynaya. Markaa dacwadda waa inay ka bilowdaa halkaa. Intii ay magaalada ila joogtayna dan ayay ahayde. Imika dalkiiba way ka tagtay.
xaalad nafsadeed oo sidii hore ka daran ayaan haddana galay. berigaa waxaa lagu wada xidhiiri jiray Viber. fariinta aan u qoraba dhowr maalmood kadib ayay si gaaban uga soo jawaabtaa. waxaan go'aansaday inaan Addis ka daba tago. xaafaddii ayaan ku idhi waxaan tegayaa dhakhtar. ha lagu raaco ayaa laygu yidhi. may sawniga ninka weyn ah ayaan ku idhi. lacag yar oo sahay ah ayaa la ii siiyey. mustawaqo been ahna waan soo samaystay. waxaanan u dhaqaaqay dhanka Wajaale. Wajaale duleedkeeda ayaa markiiba laygu qabtay. waxa caddaatay inaan foojare sito. teleefankii waa layga qaaday waana la i xidhay. 3 maalmood ayaan xidhnaa. markii la ii soo daayey reerkii kuma noqon. aniga meel Addis la yidhaa oo aanan weligay tegin ayaa ii cad. ismaan dhiibin. waxa aan maray dhanka Xarshin, Harta Sheekha, Jigjiga ilaa Addis. magaalo aanan hore u arkin ayaan dhex istaagay. sim card ma haysto. hotel tog dheer la odhan jiray ayaan ku degay. wifi-na ma leh. qorshahaygu waa inaan inantii helo, kedisna kaga dhigo. waayo haddii aan u sheegi lahaa waxaan ka baqayaa inay igu tidhaa ha iman ee joog. haddii ay joogi tiraana waa inaan joogo oo hadalkeeda waan aqbalayaa. subaxii ayaan helay meel internet ah oo aan messenger kala soo xidhiidhay. waxay ii sheegtay inay Hargeysa ku noqotay. hawsheediina si fudud ugu dhammaatay. show 3 maalmood ee aan xidhnaa ayay isoo weydaaratay. waxay igu tidhi waa la ii sheegay inaad dhakhtar u doonatay Addis ee ka waran halkee wax kuu marayaan. waxaan ku idhi wax waliba way ii dhammaadeen oo waan soo baxayaaba. ilaahay ayaa xaal og. isla galabnimadii ileen wiil yar oo aan weli hore u safrin ayaan ahaye lacagtii yarayd ee aan sariftay ayaa layga xaday. waxaan habeenkaas soo hoyday aniga oo gaajo dhimanaya, meel aan wax ka cunana garanayn. nasiib wanaag hoteelku wuu iga hayaa kiradii caawa. gaajo iyo faramadnaan ayaan Addis ku seexday. wiil meesha wax ka dhigta ayaan helay. waxaanan u sheegay xaaladayda. waxaanan ku idhi nooliga baskan jaamac jiis iga bixi. markaan Hargeysa tago ayaan kuu soo diri doonaaye. Hargeysa ayaan imid. markii aanu is aragnay ayay ii sheegtay inay baxayso oo ay dhoofayso. markaas ayaan go'aan gaadhay. waxaan is idhi wixii dhacayaaba ha dhacaane u sheeg wax kasta. kulliba way sii socotahay. ugu yaraan culayska iska rog ayaan is idhi. habeen ayaan ballamiyey. waan kuu baahanahay ii kaalay ayaan ku idhi. baabuur ayaanu dhex fadhinaa. intii aanan hadalka bilaabin ayaan dareemay dhididka jidhkayga sida biyaha u yaacaya. waan u bilaabay. wixii isoo maray oo dhan ayaan u sheegay. laga bilaabo xilligii dugsiga, dhacdooyinkii kala duwanaa, sababtii aan u sooxay, sidaan ugu adeegi jiray, dhakhtarkii la ii dhigay, safarkaygii Addis, sababtaan waxaasoo dhan u samaynayay inay ahayd jacayl aan u qabo ayaan u sheegay. markii aan hadalka dhammaystay ayaan ku war helay dhirbaaxada dhabanka ii goysay. iyada oo cadhaysan ayay igu tidhi been baad sheegaysaa. haddii ay dhabkaa tahay intaas oo sannadood maad aamusnaateen ee waanadi jeclayn. waxaan ku idhi waxaan ka baqayay inaan ku waayo haddii aan kuu sheego. marka waxaan ilaashanayay araggaaga. waxaan islahaa kollayba wax kugu fali mayso, rag baabuur lehna way taqaanaa ee ha isku dirin. waxay igu tidhi hadal kale oo dembiil igu noqday. waxay tidhi adiga ayaa cid walba iiga dhowaa. ninkan aan guursanayo maba aqoon, maxaad jacaylkaaga igu sheegi weyday. habeenkaas iyada oo aan wejigeeda murugo iyo cadho ka dareemayo ayay iga tagtay. subaxiina waxay u dhooftay Addis. noloshu way socotaa, wakhtiguna wuu ordayaa. dhowr sano kadib ayaan helay marwo aan u arkay inay reer dhaqi karto, waanan guursaday. aniga oo aroos ah, gurigaygana jooga, ayuu habeen teleefonkaygu soo dhacay. waan ka qabtay. halow markii ay tidhi ayaan codkeeda gartay. markaas ayaan gebigayguba isbedelay. waxa ii soo gaarsiisay hambalyo iyo duco. 5 daqiiqo kadib ayuu khadku go'ay. anna waan ku celiyey. mar rabo inuu hadalkeedu iga dhammaado. markii dambe ayay igu tidhi waryaanay gabadhaadu i qabsane orod oo seexo. gabadhaydii aan aroostay oo qolka iigu soo gashay ayaan ku idhi wiil aan saaxiib nahay ayaan la hadlayaaye iyar sug. intii aan la hadli karayey markii aan la hadlay habeenkaas qolkii hurdada ee xaaskaygu iigu sugaysay waan ku hagaagi kari waayey. codkeeda ayaa ii baxayey. walow ay reer leedahay aniguna aan reer leeyahay, haddana weli rajo ayaan ka qabaa. waxaanan hubaa inaan mar uun heli doono 10 carruur ahna ha wadatee. sidaas oo ay tahay haddana uma rajaynayo in reerkeedu ka dumo. waanan u duceeyaa inay barako ku noolaadaan. maanta habeenkaas waxaa laga joogaa 2 sanno oo kale. tirada guud ee wakhtiguna waa 10 sanno. 10 sanno oo nafta layla yeeshay. si kastana aan u rafaaday. weli ma bogsan, mana rabo inaan jacaylkeeda ka raysto. weli waan jeclahay, mana jiro habeen aan seexdo anigoo aan sii eegin Facebookgeeda ama Instagramkeeda.